بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دawada maanta waxaanu ka hadlaynaa mowduuc ku saabsan isbedelka iyo sida loo sameeyo waxaa jira in isbedel laga sameeyay doorashadii ugu dambeysay ee Soomaaliland ka dhacday waxa la doortay golo deegaan cusub golayaasha deegaan waxay dooranayaan maayar cusub ay dooranayaan maayarada la dooranayo ee hadda laga yaabo in la doorto ee soo socda waxa kamid ah runtii inkastoo aan wali aan la dooran haddana waxaan filaynaa oo ku rajaweynaa in la doortee Mayor Cabdikariin baa kamid ah halkan markaa maanta waxaan rabnaa inaanu sheegno talooyin ku saabsan sida uu Cabdikariin Axmed Mooge u sameyn karo isbedel la yaab leh golaha deegaanka Hargeysa sida oo kale maayarada kale gobolada kale laga doortayna ay u sameyn karaan isbedel uga sameyn karaan deegaanada loo doortay dawada isbedelku wax fudud maaha bini aadamku inta badan isbedelka ma jecla bal laakiin marka golo deegaan aan ka sheekeynano golaha deegaanka Hargeysa markaan ka sheekeynayna arinta isbedelku aad bay u adagtay fashilka ku imaada shakhsiyaadka hadda la doortay ee Cabdikariin kamid yahay oo dadku aad ugu hanweyn yihiin oo dadku aad u rajaynayaan wax inay qabtaan fashilka ku dhacaana khatartiisa ayuu leeyahay taasaana runtii keensanaysa maanta inaan ka hadalno oo nirano bal talooyin ku saabsan arintaasi aynu ka dhiibano dawada isbedelka marka laga sheekeynayo dadku afar nooc bay u dhaqmaan maayarka Hargeysa marka loo magacaabo la doorto ee Hargeysa loo doorto shaqaalaha dawladda hoose jooga xildhibaanada dawladda hoose jooga dadka kale daneeyaasha ah isbedelka dawladda hoose lagu sameeyo afar nooc bay noqonayaan qolo isbedelka waa diidayaan waana dhaqanka lagu qeeno isbedelka qolo way ka hor imanayaan isbedel in lagu sameeyo deegaan muxuu ahaayay in dawladda hoose Hargeysa qolana isbedelka waa taageerayaan qolada diidaysa waa qolooyinka maslaxaadka shakhsiga kale ee imika maslaxada ku haysta ee isla danihiina la taabanaya kuwaas way ka hor imanayaan dad badan oo kalena waa taageerayaan oo shaqaalaha kamid ah iyo dad kale oo danayaashu way taageerayaan waxa laakiin jiraya dad iyagu runtii ka shakisan isbedelkaas sida uu noqonayo waxay ka shakisayeen masaalix bay meesha ku leeyihiin masaalixda talo miyaa la taabanaya mise lama taabanayo way ka shakisayihiin dadkaasi si toos uga hor imanayaan mana iclaaminayaan ka hor imaadeen laakiin maxay sameynayaan si hoose uga hor imanayaan oo tashish ugu furayaan qolada afraad baa jirta qolada afraad maxay yihiin iyagu isbedelka iyo isbedel la'aanta midna ma taageerayaan ilaa hadda macluumaad fara badan iyo information badan isbedelka kama warhayaan siday wax u soconayaan ma garanayaan iyagu markaa labadan dhinac kuwa diidan iyo ku ogol midna ma noqonayaan laakiin sayaa goorma ayaan kooda cadaanaya qolada diidan isbedelku haday information badan ay siiyaan oo war badan siiyaan iyagay raacayaan kuwa taageersan isbedelkuna haday information iyo macluumaad badan ay iyagay taageerayaan sidaa daraadeed daawade isbedel kasta marka laga hadlayo dadku afartaan nooc qolo taageeraysa qolo diidaysa qolo si hoose inta u eegto maslaxadooda eegaya oo laakiin haddii arkan maslaxadoodana ka hor imanayso si hoose u diidaya oo kor u qaadin iyo qolo iyagu aan kala garanaynba oo labada midna aan ahayn oo kolba cidda ku badisa ay ka haysanayso laakiinse waxa xaqiiqo lama taabtaana xaqiiqa lama taabtaana waxa ah in isbedelka laga sameeyo deegaanada iyo golayaasha deegaanka Hargeysa iyo Burco iyo meelaha kaleba dadka sameynaya mayrada inay ka hor imanayaan mucaaradooyin aad u adag waxa xaqiiqo weeyaan sideeba uga gudbayaan sideeba isbedel la yaab la u sameyn karaan waxa laga bilaabaya isbedel haddii aynu rabno golaha deegaanka inaan ku sameeyno oo maayarku ku sameeyo maayarka waxa laga rabaa in runtii dadkan shaqaalaha dawladda hoose ka shaqeeya waa in la fahansiyo marka ugu horeysa baahida loo qabo in isbedel u dhaco qofka bini aadamka haddii aanu baahida aanu garan haddaan ku qancin baahi inay jirto weyn oo loo baahan yahay in isbedel dhaco taa ku qancin isbedelka ma ogolaado waa in qofkan ogaada xanuun badan inuu jiro hadduu isbedel waayo dhib badan ay imanayso maalintu dareemo isbedelka in loo baahan yahay oo xanuunka imanaya haddii isbedelkaasi aanu dhicin uu badan yahay oo isbedelku qasab yahay qofku isbedelaya waxa la rabaa markaa ninka maayarka ah ee maamula deegaanku inuu dadkii tusiyo baahida loo qabo su'aashu waxay tahay sideeba uu tusinaya haddaba waxa looga baahan yahay maayarka marka ugu horeysaba
ee uu loo magacaabo oo kursiga ku fadhiisto inuu sameeyo waxa loo yaqaano SWOT analysis. SWOT analysisku wax kale maaha, waxa weeyaan dowladda hoose shaqadeedii oo dhan ayaa 4 dhinac laga eegaya. maxaa la isweydiinayaa waar dowladda hoose halkeebay ku liidataa, maxaa ka xun, maxaa u baahan wax laga qabto. su-aashaas la isweydiinaya kadibna waxa la qorayaa dowladda hoose dhinac kasta oo laga eegayo, haday tahay dhinaca maamulka, haday tahay dhinaca muxuu ahaay waxqabadka, wadooyinka, dhulka, dhinac kasta iyadoo laga eegayo waxa la isweydiinaya maxay ku liidataa, maxaa ka siiya, maxaa ka qaldan. su-aasha labaad la isweydiinaya waxa weeyaan war dowladda hoose imika jirta maxay ku xoogantay oo macnaheedu tahay maxay haysataa, maxaa awood haysataa, maxaa dhaqaale haysataa, maxaa dad haysataa. taana waa la isweydiinaya. su-aal saddexaad baa la isweydiinaya waa maxay fursadaha u soo socda dowladda hoose ay heli karto ay iman kara. ma laga yaaba dhaqaale inay dibadda ka hesho, ma laga yaaba dhaqaale inay hay-adaha ka hesho, ma laga yaaba dhaqaale inay dadweynaha ka hesho. waxa la eegaya fursadaha oo dhan baa la analyse garanaya oo la lafagoraya. su-aal kale la isweydiinaya maxaa khatar soo iman kara, maxaa khatar ku iman kara dowladda hoose, maamulkeeda, shaqadeeda, dhulka. ma laga yaaba daad inuu soo rogmado oo wadooyinkaba uu baabi'iyo. waa khataraha la analyse garanayo. 4taas su-aalood marka la isweydiiyo ayaa waxaa la soo saarayaa baahida loo qabo isbedelka. 4taas shay marka la sameeyo oo la lafaguro lisgareeyo ayaa maayarka uu ku dul akhrinaya shaqaalihii cid walba hawsha loo baahan yahay. waxaa soo baxaysa dowladda hoose inay u baahantay inay isbedesho. sababtu waa maxay? fursado badan oo wanaagsan bay haysataa oo isku bedeli karto. maxaa soo baxaya? khataro badan inay soo saartahay inay ka hortagto. maxaa soo baxaya? wax badan ay ku liidato, meelo badan ay tacbaan ku tahay baa la soo saaraya. maxaa la soo saaraya? wax badan ay ku xoogan tahay. intaas markaa qof kastoo shaqaalaba loo cadaynaya. analysiska marka la sameeyo ayaa qodobka labaad loo gudbaya. qodobka labaad muxuu daawada yahay? vision and strategy. maayarku waa inuu dadkan tusiya halka u socdo 5 sano ka bacdi, sanad ka bacdi, 6 bilood ka bacdi, halkee loo socdaa. qof kastoo shaqaale dowladda hoose ka shaqeeya waa inuu ogaadaa maayarka iyo tiimkan meesha ka shaqeynaya halkeeba u socdaan. meeshan dowgale, meeshan greenka ay dadka ay geynayaan waa halkee, waa in lagu wada qancaa. laakiinse taa marka la sameynay maxaa laga doodayaa? analysiskii la sameeyey. analysiskii lafagurkii la sameeyey maxaa ka soo baxay? inay jiraan meelo ay dowladda hoose ku lidataa. maxaa la soo diinayaa? sidee kor loogu qaadi karaa oo loo hagaajin karaa. taasaa fishan laga dhigaya. waxaa la soo diinayaa meeshaybay ku xoogantahay dowladda hoose, meelay ku xoogan tahay oo dhan intaasoo cagacagaf bay haysataa, way ku xoogan tahay. sidii loo badin lahaa, sidii looga shaqaysiin lahaa ayaa ahdaaf iyo goals laga dhigaya iyo vision. waxaa jira meelo badan oo furas badan ay haysato oy heli karto. waxaa la isweydiinayaa furaskaas sidee loo gaari karaa, sidee loo heli karaa. visions baa ahdaaf baa laga dhigaya. waxaa la isweydiinaya khataraha ku soo socda sidee looga hortagi karaa, daadaha soo rogmanaya, roobabka da-aya, waxaa sidee looga hortagaya. ahdaaf baa laga dhigaya. marka vision cad oo la isweydiinayo war 6 bilood oo soo socota, sanadka soo socda, 5 sano soo socota, war bartaasaynu soconnaa. dawada intaasoo kaliya maaha, dadku intaa ma rabaan fishan yaroo macaan oo qurux badan oo sidaasaan ka dhigayaa saas taa looma baahna. maxaa loo baahan yahay? waxaa loo baahan yahay strategies in la sameeyo sidee lagu gaadhaya. bartaa la raba in la gaadho gari ee cagaarka ah ee wanaagsan ee quruxda badan sidee loo gaadhaya. waa inay shaqaalaha oo dhan taa fahmaan oo qof kasta og yahay sida loo gaadhayo barta loo socdo. taasna waa la dejinaya. marka imika maxaa cadaaday? qof kastoo dowladda hoose jooga waxaa u cadaaday, maayarka fikradiisa waa u cadaatay, halku u socda waa u cadaatay, waxa u cadaatay mashaakilka jiroo dhanna waa cadaatay. maxaa cadaatay? sida lagu gaaray istaraatiijiyada la raacayo iyo qaababka loo gaadhayo, waxaasina way cadaadeen. intaa marka aad samayso maxaa iman hadda loo baahan yahay? intaas waa qodobka aadka u muhiimka. waxa loo baahan waa maxay? communication. waa inaad xiriir la samaysaa dadkan shaqaalaha dowladda hoose ka shaqeeya ee tiimiskaad u baahnayd. waa in xiriir lala sameeya oo dadku waa inay fahmaan waxa aad rabto maxay tahay. qof kastoo shaqaale ilaa ka ugu hoose dhulka xaadhaa ilaa ka ugu sareeya waa inuu ogaadaa war halkeebeen u soconaa, istaraatiijiyadeena waa maxay, maxaa la xaqiijinayaa, muxuu maayarku rabaa, sidee loo qabanaya. waa inay caddahay. maxaanu diidaynaa? haddii ay dadku ogaan waayaan halka loo socdo tushushka ku bataa. dadka warka xun wada ayaa u waramaya war meeshii waxba lama qabanayo, war lagu eraya, meeshii waa laga kaxaynaya, dadkii waa la isku bedelaya, meeshii lacag ma taalo, qofkii tashiish wax lagu furaya. marka maxaa la rabaa? in laga horeysiyo dadkii horta waxan aad wado maayarku wuxuu rabo dadka waa inuu gaarsiiya, muxuu haya ku akhriya.
intaa marka la sameeyo maxaa loo baahay meel la fadhiisanaya maya waa in maayarku sameeyaa team kii hawshan fuli lahaa team ay ka kooban yihiin dadka maamulayaasha guud oo dhan agaasimayaal waaxdooda ay ka kooban yihiin oo adag iyo khubaro iskugu jira waa inay hogaamiyaan isbedelkan waa in ficil loo bedela isbedelka marka action balaan khuda ana waa in loo sameeyaa maalin kasta maxaa la qabanayaa bishii maxaa la qabanaya weekii maxaa la qabanayaa 6 bilood maxaa la qabanayaa iyadoo qorshaysan oo operation plan ah waa in la sameeyaa teamkii fulin lahaana waa in loo magacaabaa teamkaasi waa muhiim daawada lama rabo ninka maayarka kaliya ka dhex muuqdo inuu kaliya ku suntanaado wax qabadka lama rabo hadduu kaliya isra ku suntanaw waxa ku badanaya naqdiga iyo criticism-ka ku badanaya qof kasta isagu wax ka sheegaya laakiin markuu team sameeyo team adag teamkaasay dadku wada arkayaan xataa haddii qof shaqaale la eriyo qof haddii meesha laga saaro meesha team ba ka saaraya marka waa inuu team magacaaba isbedelkan horseed ka noqda oo iyagu hogaamiya isaguna uu noqdo supervisionka u yeeshaa kormeerka u yeeshaa ku dul joogteen u yeeshaa oo hawsha sidaa u wada loo baahay laakiin wax kasta inuu gacanta ku qaato wax kasta aniga badalaya aniguma ah ma soconaysa taas waa in teams kala kooban sababtuna waxay tahay qofka bani aadamku hadduu qayb ka noqdo isbedelka kama hor imaado haddii isbedelkii lagugu daro oo noqoto dadka hogaaminaya kama hor imanaysid nimankii goleesha deegaanka loo soo magacaabay odayaashii loo soo magacaabay waxay rabaan magac inay sameeyaan haddii maanta aanay lacagtii badneed aanay helayn aynu qaanay waa inay magac sameeyaan maxay ku samayn karaan waa in teamskan qayb ka yihiin waa in iyagu hogaaminayaan isbedelkii qof kasta qaybta khusayso waa inuu hogaaminayaa marka iyagii kama hor imanayaan marka qayb maadaama qaybkeen isbedel kama hor imanaya laakiin haddaan aanay qayb ka hayn isbedelkii oo maayarku kaliya isbedel ka noqdo intii kala mucaarada ay la imanayaan way ka hor imanayaan marka waa muhiim in laga wada qayb qaato isbedelka dawadayntaas marka maxaa la sameynaya qodobka ku sii xiga waa maxay waxa la rabaa maayarku inuu tuso dadka result degdega waa inuu tusaa wax ka bedel degdega waana meesha laga arkaa oo waxa la yiraahdaa oo waliba waxaan ku sheegayaa khabiirka ugu weyn ku takhasusay cilmiga isbedelka John Cotter ee jaamacadda Harvard University macalinka ka muxuu yiri isbedelka resultigiisa haddii aan muddo gaaban lagu arag mushkilad baa imanaysa muddada gaaban culimada qaar waxay yiraahdaan hadduu nusuushaku dhexdhexaad yahay 6 bilood gudahood waa in isbedel lagu arkaa hadduu nusuushan aad u weyn yahayna sana 18 bilood waa in lagu arkaa baa la yiri marka dawada waxa muhiim ah ninka maayarka waxa looga fadhiyaa result dadka inuu tuso isbedelka waa in indhaha lagu arkaa wax kamid ah isbedel oo dhan lama wada arki karo muddadu way kooban tahay 6 bilood way kooban tahay laakiin maxaa la rabaa isbedel weyn oo la taaban karo muddo kooban waa in lagu arkaa markaas dadku aaminayaan qofkii maxay maraya hadii isbedelka la arko waxay manaya horta dadkii isbedelka waday kalsooni bay helayaan maayarkii teamkii la shaqeynaya shaqaalihii dawladda hoose kalsooni baa la helaya maxaa kaloo imanaya dadkii ka soo horjeed mucaarada hoos baa u dhacaysa sababtoo isbedel baa la arkaya kuwaasna hoos baa u dhacaya maxaa marshii imanaya dhiirigelin baa imanaysa qof kasta wuxuu ku dhiirigelinayaa ahdaaftii vision kala dishay in kor laga shaqeeyo kor loo socdo oo waxa la ogaanaya vision kan maayarku wataaba in la xaqiijin karo wala dadaalaya hadii laakiin resultiga la arki waayo waliba muddo kooban lagu arki waayo 6 bilood wixii la mid ah hadii lagu arki waayo anaasirtii mucaaradada soo noolaanaysa propagandadii ba soo noolaanaysa meeshii waxba lama qaban meeshii kana dhacday waa iska hadal buunaha waxa bilaamaya niyad bay manaya marka qodobkan waxa la yiraahdaa marka isbedelka laga sheekeynayo waa qodobada ugu muhiimsan isbedelka aad wado inaad dadkii wax leeb la tusto oo soo bandhigto oo la arkaa waa muhiim daawade hadii isbedelka aad tusi wada dadka oo isbedelku kula daaho muddo kadib aad keento dadku maba aqoonsadaan isbedelka soo daha lama aqoonsado dadku bilowga isbedelka aad u jecel yihiin hadii marka la waayo hadhow hadda isbedel keento xataa aad laguma soo dhaweynayo marka waa muhiim isbedel la taaban karo la arki karo waana imaada qodobka ka raacayo dawada waa maxay qodobka raacayo waxa weeye oo aadka muhiimkii isbedelkan waa inuu taabanaya dhammaan qaybaha ugu waaweyn ee dawladda hoose يعني قيب كسا wax ka bedel balaaran waa inaad ku sameeysaa ma ha kaliya isbedel yar inaad sameeyso meel yar oo koobana administration kan wax ka bedelay finance kan wax ka bedelay kan ma shaqeynayso
isbedelku waa inuu laf dhabar noqdaa dhulalkii la kala qaadanayay qaabkii dhulka loo bixinayay hantiyihii maguurtadee la kala qaatay in meeshan wadooyinkan la wada qaatay dadku kusoo wada durkeen dhulkan la iska wada qaatay danta guud muxuu haayay dowladda hoose sida u shaqaynayso sida dhulka loo bixinayo yacni waa inuu taabtaa meel kastoo laf dhabar ah isbedelku waa inuu taabtaa hal mar taabtaa dawada isbedelka waxa la yidhahdaa haddaad tira in yar baan u wadayaa waxay imanaysaa in lagaa dulguuro waqtigu intuu dheeraa dadka ay ku nacaan maxaa lagaa rabaa waa inuu isbedelku hal mar noqdaa u ballaadhnaada dhinac kastana waa inuu taabanaya dawad qodobkaa waxaa raacaya oo isbedelka markaynu ka hadlayno qodob aad u muhiim ah marka aad go-aamada soo saarayso haddii aad maayar tahay go-aankaaga waxaad marka ugu horeyso ka eegaysaa waa sharciga muwaafaqsan yahay iska ilaali maayar go-aanaan sharciga waafaqsanayn haddaad cid dhul siinayso haddaad ka qaadayso haddaad guri duminayso haddii aad ka tegayso haddii aad waddo banaynayso haddii kale markasta sharciga eegin waafaqsan yahay sharciga markaad ogaatay inuu waafaqsan yahay qodob labaad isweydii oo waa maxay qofkan horta u sheeg ciddan aad go-aanka ka soo sartay communication la samee wacyigelinsi ka wacyigeli dadkan wadooyinka horteeda wada qabsaday wax ku iibinaya ha ku dhaqaajin cagacafta hal mar ha marinin horta la communicate garee la hadal wacyigelinsi ku qanci ha fahmaan dawada kaamaka aad samayso maxaa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa waar dadkan meesha iska haystaa dhibaata meeshii taalla iskuda inaad trade off aad samayso yani trade off waxa weeyaan meeshii dhulkii kasoo qaad bacdla hargeysa dad baa degan waa wadadii iyo dad baa degay wadada in la baneeyaa waa sharci dadkan meesha degay masaakiinta islaamaan wax ku iibinayaana wax kala ma hayaano in yaro lacag ay ka soo saaraan caruurahooda iskuulada ugu diraane iyagana waxa u baahan in la tixgeliyo labadii iswaafaji sideeban wadadan u baneeyaa dadkana aan wax fiican oo kale ugu sameeya labada iswaafaji laakiin sax oran sharcigii baan raacaya wadaduman sida cagacagaf u marinaya dadkana danahooda maba eegayo ha samayntaa sababtu waa muhiim bini aadankan in la tixgeliyo qofkan meesha fadhiya duruuf baa meeshan keento waanaad eegtaa marka labada saa isu waafajin lahayd oo khasaaraha ugu yar uu dhici lahaa ayaa lagaaga fadhiya waana barta lagu kala tegay maaha go-aan fulinta waan ku dhaqaajinaya waxaan marinaya cagacagaf maaha taa maaha ama dadkan iska daynaya wadada iska dhex fadhiisanayo ma taabanaya taana maaha ta lagugu qiiminaya waxa weeyaan sidaad isu waafajiso wadadiina inaad banayso dadkii dhibaataysnaaya meesha deganaana aad u hagaajiso howlahooda wax uga qabato u raaligeliso iyagoo qanacsan ay meesha uga baxaan taasaa lagaga fadhiya taa markaas amase qodob saddexaad baa dawada ku raacaya xaaji maayarow meel kasta oo joogtaba maxaa ku raacaya waa inay dadku go-aankaaga u sinaadaan hebel baan ku fulinayaa kana kuma fulinayo kawaan ka duminaya kana kuma duminaya ma shaqaynayso go-aanku hadduu sharci noqdo ood qofkii u sheegto ood wacyigelin siiso isku day khasaaraha ugu yar inuu dhaco hadduu khasaaro dhacayo ka ugu yar waa inuu dhaca iska ilaalisa khasaara qofkii inaad ka dumiso kaaryoonkiisa aad jiidho aada iskaga ilaali intaas ka ilaalin karto qodobka ku raacaya waa maxay dadkuna ha ku sinaadaan dadka ha kala qaadin qof kasta go-aanka sida ha lagu fuliyo qodobka ugu dambeyn kusoo khatimina waxa weyn daawade waxaa jiraysa mucaarado kaa hor imanaysa mucaarado khatara kaa hor imanaysa oo kasoo horjeesanaysa muxuu ahay go-aamadaada sideebaad u waajahaysaa kow waxaad u waajahaysaa mucaaradada marka ugu horeysa waxaad samaysaa war macluumaad sii dadkan kaa hor imanaya communication fiican la samee dowladda soo shaqaalaha jooga way ka hor imanayaan qaar badan oo ka mida oo masaalixdoodii baa taabanaysa laakiinse waxaa lagaa rabaa marka hore la xidhiidh war fiican ha helaan macluumaad badan ha ka helaan maxaad wadaa qaar baa aaminsan meesha inaad ka eriyeysaa imika may waa ina ogaadaan oo macluumaad badan siisaa qofna ha iska eryin markaad meesha qabasata mayr waa lagu imanaya dab war badan baa lagu keenaya hebelkaasi waxba ma qabto kaasi uu iska fadhiya kaasi waa corrupt waxaa wada helaysaa ha qaadan arrimaha dhegeysana waxaad xaqiiqo ku aragtay mooyaane oo la taaban kara mooyaane qofna go-aan laguu soo sheego cid kuu soo yeedhisay ha ku qaadin sababto waxa laga yaaba qofkan meesha iska fadhiya shaqada aan qaban waxaa laga yaaba inuu qaban waayo shaqadaba ninkii kaa horeeyay inuu ku taagnaabaa dhici karta oo haddaa adagu maanta fursad aad siiso inuu dhaqaaqa lagaba wax qabtaa laga yaaba markaba shaqaalaha ku degdegin waxaanad samaysaa shaqaalaha marka laga sheegin isbedelka shaqaalo badan oo khataraa meesha jooga oo muddo dheer joogay haddii aad hal mar wada taabato in lagugu kacaa dhici karta maxaa lagaa rabaa midh baa loo siibaa kolba midh baad siibaysaa kuwa xaqiiqadooda aad ogaatay inaanay waxba qabanaynin meeshaas ka fadhiin ama ay corrupted yihiin midh baad u siibaysaa adigoo si feejigan xuquuqdiisina aan meel kaga dhacayn intaa daawada waxaa ku raacaya
mucaarada sidaad u jabiso horta macluumaadkaa wanaagsan inaad waddo waa inay helaan. Lambar 2 waxaad kala samaynaysaa oo aad u muhiim ah waa inaad ka qayb gelisaa isbedelka. haddii dadka mucaaradada kugu adeegay dowladda hoose jooga ama kuwan xildhibaanadan kula soo baxay kula midka ah ee qaar mucaarad kugu noqdaan, isku da iyaga isbedelka inaad ku soo darto oo qayb ka noqdaan oo wax hogaamiyaan. taa haddaad samaysana sheekadu way kaa degaysaa, mucaaradadu way kaa degaysaa. waxaa kaloo laga rabaa tababar iyo aqoon fur. dad badan baa wax laga yaabaa systemskan aad ku shaqaynayso inaanay garanaynba iyo qaabkan aad u shaqayso. haddii aad tababaro iyo aqoon isweydaarsi aad furto, workshop aad furto, wax badan baa u baxaya. taasna waa loo baahan yahay. waxaa kaloo loo baahan yahay inaad laftigeeda aad samayso wada hadal. haddii xildhibaano ka hor imaadaan, haddii shaqaala ka hor imaadaan, intaanad go-aan qaadan la hadal, wada hadal la samee, negotiation la samee, isku day inaad isfahantaan. markiiba go-aan ha qaadanoo waana eriyeyda waa laga fiican yahay. ugu dambayn, haddaad aragto shaqaale aan kula shaqayneyn oo meeshiina aan daacad u ahayn, oo wax soo saar lahayn, oo meesha khasaaruun ku ah, oo corruptionkooduna badan yahay, oo meeshan ay sii joogaan ay khatar ku tahay dowladda hoose, ogolaan waayana inay systemka ay la jaan qaadaan, waa markay imanayso halka ugu dambaysa inaad istaagto oo shaqada aad ka qaado. dawada waxa ugu muhiimsan waxa kugula dardaarmayaa maayar iyo cidda kale runtii dalkao dhan maayar ka noqonaysa iyo dadka qofka soo shaqaalahaba, inaad ilaahay tala saarato ood ilaahay subxaana wa tacaala qalbiga aad geliso inuu wixii wanaaga uu kugu kaalmeeyo. iskuna day oo ku dadaal dadka hareerahaaga taagnaanaya dad wanaagsan ay noqdaan. bitaanatu suu haddii ay hareeraha kaa taagnaato, dad xumxume hadday kugu hareerahaaga kaa galaan oo la taliyaal kuu noqdaan, maayarow ma hagaagaysid, waan kuusii sheegaya. laakiinse dad fiican hadday hareerahaaga taagnaadaan oo kuwa kula dardaarmay ku toosinaya iyaga un ay noqdaan, waad hagaagaysaa. markaa isku day dad wanaagsan inaad isku haraarayso, iskuna day warkaaga iyo waxqabadkaagu markasta inuu noqdo mid muuqda oo dadku ay ogaadaan oo miidiyaha laga war helo si loola socdo kolba hawshaada halkay marayso. intaasaan kusoo koobaynaa. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.